بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan bilaabeynaa chapterka trigonometry-ga oo ka mid ah xisaabta dugsiga sare lagu dhigto. marka haddii aan ku bilowno right triangle waxay dhahaan amaba muthallathkan amaba saddex xagalkan inta meesha noogu sawiran wuxuu ka kooban yahay saddex xagalood. xagal ka mid ah waa inay tahay 90 degree sida tan hadda aan haysano oo kaleeto. tan waxaan dhihi karnaa waa 90 degree marka right angle. right angle-ka xagashu waa inay 90 darajo ay tahay si right angle uu yahay oo noqdo saddex xagalka aan haysano. marka haddii hadda angle-kan aan qaadano oo kaleeto kan hadda meeshan inoogu sawiran sida halkan ka muuqato waxaan kasoo horjeedo waxaa la yidhaahdaa khadkan toosan ee taagan waxaa la yidhahdaa opposite. waxayna xaraf ooga dhigaan b. kan waxay dhahaan adjacent, waxayna xaraf ooga dhigaan a. kanna waxaa la yidhaahdaa hypotenuse, waxayna xaraf ooga dhigaan c. marka waxaa la socda marka saddexda function amaba saddexda nooc saddexda function ee trigonometry-ga ay ka bilaabmaan waa sine, cosine iyo tan. marka sine waxay dhahaan waa opposite-ka oo loo qeybiyey hypotenuse-ka. kanaan iska tirtiraya ama halkan aan ku qorto. cosine waxay dhahaan waa adjacent-ka ee dj bas baan kasoo qaadanayna loo qeybiyey hypotenuse-ka. tan baa kuusoo hartay. tan marka waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa waa tanna waa opposite-ka oo loo qeybiyey adjacent-ka. haddii aan si kale u dhigno xarfihii yaryaraa ee soo gaabiska ayaan usoo qaadanay. haddii aan u dhigno waxay noqonaysaa cosine waxay noqonaysaa maxay? waxay noqonaysaa a oo loo qeybiyey c. tanna waxay noqonaysaa b oo loo qeybiyey a. sine-na waxay noqonaysaa maxay? qalinkan ayaan soo qaadanaynaa. sine-na waxay noqonaysaa b oo loo qeybiyey c. intaas marka waa inta koowaad oo asaaska u ah. marka haddii aan rumuus kale u yeelno amaba xarfo kaleeto oo aan dhahno opposite-ka waa o, hypotenuse-kana waa h, adjacent-kana waa a sida haddaba uu yahay, waxaa jiro qaab ay dhahaan waa lagu soo xasuusan karaa oo way fiican tahay in ardayga inuu xifdiyo. taas waxa weeyaan SOHCAHTOA. SOHCAHTOA waa kelmad hal kelmo oo aad xifdin kartay ku leeyihiin. sta waxay u taagan tahay sine, owdana waxay u taagan tahay opposite-ki, h-tana waxay u taagan tahay hypotenuse-ki. marka sine waxay noqonaysaa sida aan hore u sheegnay opposite-ka oo loo qeybiyey hypotenuse-ka. cosine-na sidoo kaleeto a-dio adjacent u taagan, h-dio hypotenuse u taagan. marka ayadana cosine waxaad dhihi kartaa waxay la eg tahay a oo loo qeybiyey h. towana waa tanti oo ayadana waxaad dhihi kartaa tan waxay la eg tahay o oo opposite-ka ah loo qeybiyey a oo ah adjacent-ka. intaas haddii aan hadda tusaale usoo qaadano oo aan angle-ka marka la sawirano
angle naga perfect ma ahan laakiin waxaan isku dayaynaa sida ugu macquulsan inaan u soo dhaweyno iska tirtirna kan si fiican umaanan keenin angalada sawiradooda ma dhib yara marka qalinkayga marka la doonanayo kalarka markaan iska bedelayaa haddii aan qaadan oo kale kalarka bluega oo aan jeclahay kor u bax deetana kan waxaan idhi angalkayga waa kana kan waxaan idhi waa kasoo horjeedki kanna waxaan idhi waa angalku daris leeyahay kanna waxaan idhi waa isku xirihi amaba hypotenuska marka haddii aan dhahno kan wuxuu leeyahay 4 halkanna waxaa leeyahay jasonkana oo ah kan aan dhahno ogi kan aan dhahno ht kan aan dhahno maxay sorry kan waa eegi raalli ahaada kanna waxaa weeyaan ht marka htana haddii ay leeg tahay 5 waxaan dhigi karnaa socato anagoo isticmaali karno sin waxay leeg tahay maxay 4 oo loo qaybiyey 5 cosine waxay leeg tahay 3 oo ah jasonka oo loo qaybiyey h oo ah 5 waa soca caht weeyaan taanna waxay noqonaysaa taanna waxay noqonaysaa 4 oo loo qaybiyey opposite-ki oo loo qaybiyey a towa 4kii oo loo qaybiyey 3 marka kelmadan soo gaabiska ee socato haddaad xifdiso waxaa kuu fududaanaysa inaad xasuusnaato opposite-ki adjasonkii hypotenuskina aad xasuusato waxaa kuu fududaanaysa inaad xaliso su-aal kasta oo kaaga timaado right triangle-ka intaanan ku joojinaynaa darsiga kan ku xiga waxaan ku sharxaynaa haddiina la siiyo angle iyo labada dhinac midkood sidaan usoo saari karnaa iyo weliba haddiina la siiyo labo adjasonka iyo hypotenuska kaleeto sidaan kusoo saari karnaa opposite-ka amaba haddiina la siiyo opposite-ka adjasonka sidaan hypotenuska kusoo saari karnaa darsigana maanta intaas ku egyahay